Assalaamu calaykum. Waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan 11 arrimood oo haddii aad samayso aad kaga hormarayso dadka kula midka ah. balse intaan gudagalin faahfaahinta haddii ay tahay markaagii kugu horeysay ee aad soo booqatid channelkan, subscribe saaro, gambaleelkana furo si aad u heshid wararka iyo macluumaadyada aan halkan ku soo bandhigno. mahadsanid. waa inaad noqotaa qof diyaar u ah isbedel iyo in aadan niyad jabin si aad arrimahan ugu guulaysato. nolosha waa muddo kooban, waxaadna u baahan tahay in aad waqtiga aad ka faa'iidaysato ha noqon dadka ku mashquulsan wax aan dan u ahayn ama aysan faa'iido ka helinin. haddaba 11kan arrimood waxay soo koobayaan sida aad ugu guulaysan karto asaagaaga iyo dadka kula midka ah. 1. qorshayso marka dadka kale ay iska ciyaarayaan. si aad guul u gaarto waxaad u baahan tahay qorshe wanaagsan. hana ku dayanin dadka kale ee iska ciyaaraya ee ku jira nolosha baashaalka ah. ha isku mashquulinin game iyo wixii la mid ah maalaayacniga iyo fadhi ku-dirirka aan faa'iidada ku lahayn. haddaba la imow qorshe wanaagsan iyo yool aad tiigsanayso. 2. waxbaro marka dadka kale ay hurdayaan. qaybta ugu muhiimsan ee guusha nolosha waa in aad si wanaagsan u barato xirfadda aad doonayso in aad ku shaqaysato. waa in aad noqotaa qof wax akhriya, diini iyo maadiba si aad u fahamto wax badan. ha noqonin qof hurdo badan ama sariirta iska saaran oo aan lahayn ujeeddo hagaysa. 3. go'aan gaar inta dadka kale ay dib isu dhigayaan. waa in aad noqotaa qof go'aan leh oo aan dib isu dhigaynin. waxa aad maanta samayn karto hala sugin ilaa berri. dib isku dhigista waxay dhalisaa caajis iyo in ay howlo badan isku kaa dul fuulaan aadna garan weydo si aad u kala saarto. 4. isdiyaari inta dadka kale ay ku jiraan riyo maalmeed. waa suurtagal in aad aragtay adigoo mararka qaar riyo maalmeed ku jira oo ka fikiraya arrin in aad ku guulaysato. haddaba waxaa furo u ah guusha in markasta aad noqoto qof diyaar ah oo fursaddii soo martaba ka faa'iidaysanaya. haddii aan waxaas haysan lahaa, waxaas baan samayn lahaa, ha oranin ee noqo qof soo jeeda oo horay u sii gala fursadaha. 5. bilow inta dadka kale ay isdaahinayaan. waa arrin ku xiran dib u dhigidda. fursadaha marka aad hesho haddii aadan horay ka bilaabin way ku dhaafaysaa, qof kale ayaana ka faa'iidaysanaya. haddaba isdaahinta iyo dib isu dhigidda waxay horseedaan guul soo daahda ama guul darro xun. 6. shaqayso inta dadka kale ay yihiin rajo ku nool. ha noqon qof rajo ku nool ah. rajada wanaagsan waxaad ku lamaanisaa shaqo iyo howlkarnimo. rajo aysan wehelin shaqo waa furaha guuldarrada iyo walbahaarka. 7. wax kaydso marka dadka kale ay khasaarinayaan hantidooda. diinteena islaamka xitaa way inooga digtay in xoolaha ama lacagta lagu ciyaaro. haddaba kaydso lacag si aad ugu baxsato maalinta aad u baahan tahay. ha noqonin kuwa ku ciyaara xoolahooda ee marka ay baahida u qabtana shallaaya. 8. dhegayso marka dadka kale ay hadlayaan. dhegaysiga waxaa laga faa'iidaa fahamka iyo barashada waxa laga hadlaayo. haddaba noqo qof si wanaagsan dadka kale u dhegaysta, iskuna daya inuu wax ka faa'iido. hadal badan haanma buuxso. haddaba inta hadalkaagu yar yahay dhegaysigaaguna badan yahay waxaad haysaa dhabaha guusha. 9. dhoola caddee marka dadka kale ay gunuunacayaan oo ay xanaaqsan yihiin. dadka qaar waxay jecel yihiin in ay dhib uun sheegtaan ama ay gunuunacaan. wax kasta way dhibsanayaan, guul iyo guuldarraba. haddaba noqo qof dhoola caddeeya xilliga dhibka iyo xilliga guushaba. hormuud u noqo isbeddelka. ku farax oo soo dhoweey marka kuwa kale ay calaacalayaan. 10. bogaadi marka dadka kale ay eedaynayaan. dhaleecaynta waa dabeecad aad u xun oo marka ugu dambaysa kaa hor keenta qof kasta ilaa heer aad nacdo noloshaada. guuldarrada ha kuu noqoto waxbarasho. halkii aad dhaleecayn lahayd, qayb ka noqo sida loo sixi lahaa wixii khaldan. 11. adkayso inta kuwa kale ay niyjab dartii u joojinayaan shaqada. adkaysiga waa sida lagu gaari karo guusha. ha niyad jabin, hana quusanin. guul kasta waxaa loo maraa waddo caqabado badan ay yaalaan. haddaba dhibka yuusan kuu horseedin quus.